الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، كلمة موضوع هذا عنوان كمحاضرة سيدة ولالك نشي وحوي المخرج من الفتن أما موقف المسلم من الفتن. فتنooyinka iyo sida looga baxo dariiqa looga baxo ama mowqifka looga baahan yahay ruuxa muslimka inuu iska taago fitnooyinka. waxay u baahan tahay inaan qeexno fitanka maxaa laga wadaa, kadibna aan u gudubno qaabkee ayaa looga badbaadi karaa ama kaalintee loo baahan yahay ruuxa muslimka inuu iska taago fitanka. fitanku waa kelimo jamci ah, waa kelimo mufradkeeduna waa fitna. luqadda carabiga ah ee qur-aanka iyo sunnadu ay ku yimaadeen, fitnada waxay u yaqaaneen carabtu oo lagu itlaaqi jiray oo asalkeedu uu yahay sida uu leeyahay alimaam alraaqib alasfahani, waxaa la yidhaahdaa idkhaalu dahab annaar litadhara jawdatuhu min radaa'atihi. dahabka marka la soo saaro oo uu caydhiinka yahay ayaa waxaa la dhex geliyaa dab baa la geliyaa. dabkaasi marka wuxuu kala saarayaa dahabka kiisa fiican iyo midkiisa xun buu kala soocayaa. camaliyada marka dahabka lagu kala saarayo kiisa wanaagsan iyo kiisa xun ee dabka la dhex gelinayo ayaa asalka kelimada isticmaalkeedu uu ku yimid kelimatu lfitna. alimaamu nawowi caleyh raxmat ullah iyo alxaafid ibnu xajar iyo aimadaasi waxay tilmaamayaan iyagu asalka fitnadu fi kalaami alcarab waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin alibtilaa walimtixaan waalikhtibaar. waa ibtilaha iyo imtixaanka iyo tijaabada, ruuxa la imtixaano la tijaabiyo. dabcan marka la imtixaanayo natiija laga raadinaya, waxbaa la kala saaraya. imtixaanku sidiisaba wuxuu u dhacaa inay soo baxdo natiijo dadku ama cidda la imtixaanayo markaasi lagu kala soocayo ama lagu kala saarayo. macnahaasi ay ku sheegeen aimadaasi dhanka luqada ayaa sharcanna shareecadu isticmaalkeedu uu u badan yahay. qur-aanka kariimka wuxuu u isticmaalay fitnada ama kelimatu lfitna macaani kala gedisan, wakadalika axaadiista nebiga sal lla alay wasalam waxay ku timid iyadoo macaani kala gedisan xambaarsan. laakiin ujeeddada halkan aan ka leenahay waxa weeyaan fitnada caawa darsigeennu ama muxaadaradu ku saabsan tahay waxaan ka wadnaa alikhtilaaf waalfurqa bayna almuslimiin. waa khilaafka
iyo qaybsanka muslimiinta dhexdooda yimaada oo ay isku khilaafsan yihiin ama ku kala tagaan ama isku laayaan adduunyo jaga iyo kursi maalan dhul iyo deegaan maalan masaalix iyo dana kale oo adduunyo ay isku laayaan khilaafkaas hadduu heer gaadho gacanka hadal iyo in la dagaalamana waa mar sii cuslaaday wey hadduu mujaradul furqa iyo iskhilaaf aan gacanka hadal weli gaadhin uu joogana isaguna waa fitna laftiisu labada fitnada waa lagu itlaaqay waxaa isagana qayb ka ah oo soo galaya iftiraaqa iyo ikhtilaafka muslimiinta dhexdooda yimaada oo isku khilaafaan kulliyaadka iyo usuusha diinta mabaadi'da waaweyn ee asalka u ah caqiidada muslimiinta markii lagu kala tago la isku khilaafo iyadana waa fitna sida khilaafkii dhex maray firaqda luntay oo jidka ka leexatay iyo ahlu sunnaha oo matalayay kitaabka alle iyo sunnada nebi sal alla alayh wasalam iyo dhaqankii salafka iyo saxaabada furqadaasi iyo khilaafkaasi qadaayaadka la isku hayo lagu kala tegay waxay ahaayeen usuul waaweyn iyo kulliyaadka shareecada ayay ahaayeen khilaafka halkaa galay isagana wuxuu noqdaa furqa lagu tilmaamo waana midka nabigeenu sal alla alayh wasalam xadiidul iftiraaq uu ku tilmaamayey ee uu rasuulku yihi sal alla alayh wasalam iftaraqat alyahuudu cala 71 firqa وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة وفي رواية ملة يهودي وحي أكا تكتي كوية تضباتا كوحود نصارى يا كريستنا وحي أكوكا لتغيان أما قيب سمين تضباتا يلوق كوحود ومدى إنه وحي قيب سمي دونتا تضباطا يصدح قيبود أما كوحود أما فرقو كلها في النار إلا واحدة بالنبي صلى الله عليه وسلم فرقوين كتضباطا يصدح ذا لما أنتو النار تيقليا إلا مدموي هي لجماعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وضدك وذا الشرة وذا الصعودة وهذا نكو وذا الصعودة طريقي سحدة كتابك الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم يدقن كي سلف كي الصحابة رضوان الله عليهم marka meesha waxa ka muuqata iftiraaqa halkaas ka yimid ay sababtay qadaayaadka diiniga ee lagu kala tagay asaguna waxa weeyaan waa fitna waxa kale oo fitnada la yiraahdaa oo lagu itlaaqi karaya iftiraaq iyo kala tag iyo khilaaf sababtiisu ay tahay masaa'il asalkeeda iskhilaafkeeda la isku khilaafo uusan dhib lahayn haddii baqyi iyo gardarriya xadgudub laga dhaliyo furqada ka timaada iyadana waxaa la yidhaahdaa iftiraaq iyo ikhtilaaf baa la yidhahdaa waxaa kale jira saxaabada ridwaanullaahi calayhim iyo taabiciinta iyo a'immadii salafka ridwaanullaahi calayhim waxaa jira masaa'il cilmi ah oo ay dhexdooda isku khilaafsanaayeen haddana maca daalika iyagoo isku khilaafsan ay walaalo ku ahaayeen masaa-isha noocaas oo kale ah khilaafkeedu waana jiri doonaa lama afjari karo laanna waa qadaaya ijtihaadiya oo yasuuqu fiiha alijtihaad in la isku khilaafo aragtida culimmadu ku kala gedisnaato waa mushkilo male masaa-isha noocaas oo kale ah marka furqadu waxay ka timaadaa markii laga dhaliyo baqyi laga dhaliyo xadgudub iyo gardarro oo cidda kugu khilaafsan aad ku xadgudubto oo aad gardaraysato oo dawaabidii sharciga heedaadan ilaalinin oo aad tiraahdo aniga wixii ikhilaafsan ba haddaan tayda la marin muxuu ahaayey dadku waa ama waa lunsan yihiin ama waa firqa ama muxuu ahaayey waa ahlulbidac ama oo marka aad xalaashato cirdigooda ama maalkooda ama dhiigooda inaad xalaashato markaas iyadana waa furqo wey laakiin waa furqo asalkay ku taagan tahay masaa-isha la isku khilaafsan yahay mehe waa baqyiga iyo gardarrada iyo xadgudubka laga dhaliyey
quraanka kariimka marka dib ugu noqotaan markuu ka hadlayo ikhtilaafka sababta ugu badan ee quraanku khilaafka uu u celiyo ee sabab uga dhigo waa baqiga markaad fiiriso baqiyan baynahum baa lagu soo celinaya baqiyan baynahum waa gardarrada iyo xadgudubka inaad xuduudiyo soohdimihi shariicadu dejisay aad ka tilowdo وبالتالي مخالفkaaga aad ku xadgudubto marka kullu dalika waxa soo dhan waxa isugu iimaanayaan ikhtilaaf iyo iftiraaq bay isugu iimaanayaan wuxuu iimaan karayaa oo sidoo kaleeto adiga ama diin ha ku saabsanaado ama adduunyaha la isku khilaafsan yahay ha ku saabsanaado ama siyaasi ha ahaado ama diini ha ahaado ama dunyawi kale ha la isku khilaafsanaado haddii khilaafku uu joogo illa kala tagay oo aan la midaysnayn oo la wada soconin oo la isnacay inta hadduu joogo waa furqa waana khilaaf waana kii shariicadu ka degtay waana shar wuxuu ka sii daran yahay markii furqada iyo ikhtilaafku uu gaadho in la islaayo oo xurumaadkii dhiiggii iyo acraadii iyo la xalaashado marka waa ka sii daran yahay oo waa furqo iyo khilaaf ka sii daray inta kadib waxa muhiim ah inaan tilmaano furqada iyo kala tagu iyo iskhilaafka iyo midnimada muslimiinta oo baaba'da ama dhib badan ay gaadhay dhinac marka laga fiiriyo waa sunna hatmiya waa shay aan la baajin karin وشيء لا باجين كري بمعنى إلهي با قدري تبارك وتعالى تقدير كيس كوني جابوا الله وحو قدري ومدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسخلافته ووح قدرون وبالتالي لما باجين كرو قدر إلهي بكوهر مرتي وإلهي با تبارك وتعالى سيدا أقر شيء إن خلاف أو يمادو ومدى النبي صلى الله عليه وسلم اسكو بعضه in dhexdeeda dagaal yimaado in dhiig daato qadar ilaahay bay ku hormartay tabaaraka wa taala xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ba tilmaamaya sida xadiidka ummu habiba rasuulku wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam ara'ayta ma talqa ummati ba'di wal kawaran waxa ummadaydu ay gadaashayda la kulmi doonto wasafki ba'dihim dimaa ba'd iyo daadinta qaar iyaga kamida qaar ka kale ay dhiigooda daadinayaan islaynta islayn doonaan wa kana dhalika sabiqan min Allah kama sabaqa fil umami qablahum nabi sallallahu alayhi wasallam arintaasina waxa weeye waa arin ilaahay qadarkiisa iyo cilmigiisa ku hormartay sidii ummadihii iyaga ka horeeyay fasaltu an yuwalliyani shafa'atan fihim yawm al-qiyamah rabbigay baa waxaan weydiistay nabi sallallahu alayhi wasallam maadaama uu khilaafkiyo inay islaayaan imaanayo Allah waxaan weydiistay inuu isiyo inaan dhexdooda u shafeeco maalinta qiyaamada fafa'ala Allah waa iga yeelay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam yaani wax weeyaan dibkan ay isu geysanayaan iyo khilaafkan iyo dhiigga daadanaya iyo barakacinta iyo waxan inaan u shafeeco shafaacadayda ay gashaan ilaahay weydiistay allana waa iga aqbalay buu nabiga sallallahu alayhi wasallam maqsuudku wax weeyaan yaani wa kana sabiqan min Allah tabaaraka wa ta'ala wax ilaahay tabaaraka wa ta'ala cilmigiisa iyo qadarkiisa ku horeeyay xadiidkii haddaan tilmaamayna xadiidka waxa warinaya al-Imam at-Tabarani fi al-Awsat Hakim fi al-Mustadrak wa xadiis sahih waxa kale oo tilmaamaya masalada iyada ummadan khilaafkeedu inuu yahay مسألة حتمية قدر ربانية حديث أحمد يا مسلم أي صوص صارين وحلي النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة ربي جاي وحن ويديستي صدح الريموت صدح دي لو كم دوائسي ويقع أقول هذا مدن وإيدي دي معي تهي سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها ربي waxaan weydiistay inuusan ummadayda ku halaagin oo ku baabi'inin abaaro masaa'ibta caamka waxa laga hadlayo waa ummadii oo dhan marka maaha ummad qutri ama deegaan muayyan degta maaha laakiin ummadda nabiga oo dhan baa laga wada hadlay sida ummadihii hore oo kale
qaar kamida duufaanta loogu baabi'in jiro waxba looga reebi jirin qaar kamida dhulka la goyn jiro waxba looga reebi jirin qaar kamida inta lagu qayliyo sayxa lagu baabi'in jiro waxba ka hadhi jirin inuusan ilaahay musiibo noocaas ummadayda ku baabi'inin baan weydiistay waana iga ogolada waa isiyay buu nabigu sallallahu alayhi wasallam وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق بيو يضوفانه إنه سنكبا بإنن وويديستي فأعطانيها وإسي وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها وحا ويديستي ألا إن أوصن أمضي إذا نحذي ذا بلايي باس لغن وإيضا أن لا يسكدرين تاس ولا إيدي ذي بنبرس الله عليه وسلم ربي تائق ما أقولانه بمعنى قدر إلهي بكهر مرتي مر هذي قدر إلهي كهر مرتينا تابر يد لقاميه لين ويدعي مقصود كان حديث كلنا يتاسوا فمنعنيها بأسك يو إسلينتا يا مصائبته ومضى لحظة دعيساي ووحي إلهي قدرتي سكوه الرئي تبارك وتعالى ساس دراديت لما باتشن كره إن بدنوا كم ذا لكن هذانا أساليب باتشرته أسباب باتشرته لغو خفيفين كرو أما قيبة كم ذا لقى هرتيكر من حيث الجملة من كان لنا مر كان لنا هاي لما باتشن كرو لكن إن بدنوا كم ذا هذه أسباب تهدي تشيد كذي لمرو واحد لقى هرتيكر هاتشرة واحد مركور لعول داوين كرنا واتشرة وأنا مدى شريعتنا أمريس ووحي أنتو سن إيماننا إن لقى هرتكو وبلايدا laga hortago la baajiyo la isku dayo in la baajiyo markay dhacdo umadu iskhilaafto dagaalantana in la daaweeyo oo dariiq sax loo maro sidii dhibaatadan dhacday looga kabi lahaay oo uga bixi lahayd in marka la isku dayo taaway mid marka la isfaray yaan amrana inta waxaan uga gudbaynaa inaan tilmaano fitanku waa laba qaybood sida xadiiska nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam فتنة خاصة هي فتنة عامة لو قيبية فتنة ومد جود ومضى يوضى الصامين يسا نبت قلية ذا عافمات كذا نلش كذا ضل كذا ديق كذا عرض كذا فوضى الصامين يسوى ذا قاعد يسوى توحل إلى هذا وفتنة عامة midna waxa la yiraahdaa waa fitna khaas fitnada khaaska waxa la yiraahdaa waa ruuxa wixii gooni ku oo dhib ah oo ama isagii reerkiisa ama isagii dariskiisa ama isagii caruurtiisa ama isagii wixii khaas ah oo dadka gooni u haysta fitna khaasa lagu iطlaaqaa midda marka darsigeenu ku saabsan yahay waa midda caamka labada qaybood inay u qaybsanto waxa tilmaamaya xadiidka Bukhari iyo Muslim ay soo saareen min xadiis Xudayfa wuxuu leeyahay Xudayfa kunna inda Umar ibn Khattab baan la joognay buuri markaas Umar wuxuu yiri ayyukum yahfazu hadith rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam fil fitna kama qaal waragina meesha fadhiyo kiineba xifdisan nabigu fitnada wuxuu ka yiri Umar baa su'aasha weydiinay markaas wuxuu yiri Xudayfa aniga ana xifdisan baan ibu markaas Umar wuxuu yiri innaka la jari wa kayfa qala waniyo nin dhiiran ba tahay seebu nabigu yiri markuu ka hadlay arinta ayada muxuu sheegay bimaana nin dhiiran ba tahay nin dhalinyaro ba Xudayfa wuxuu ahaa ragii dhalinyarada saxaabadu kamid ah hadana ma dalika meesha la wada joogo ninka soo booda ana xifdisan yiri war waa dhiiran tahay bal sheek buu muxuu ahaa bal muxuu nabigu ka yiri salawaatu rabbi wa salaam alayhi markaas wuxuu yiri rasuulkan maqlay sallallahu alayhi wasallam oo dhahaya fitnatu ar-rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyamu was-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar fitnoobida uu ninku ku fitnoobo ehelkiisa reerkiisa xoolihiisa naftiisa caruurtiisa dariskiisa fitnada halka kaga timaada oo dhinacyaha ka soo gasha waxa tirayso asturaysa soonka salaada sadaqada khayrka dadka uu farayo xumaanta uu ka reebayo
kuwaasa lagu asturayaa oo lagaga cafinaya markaas Umar wuxuu yiri laysa hada urid bud tan doonaya taama ah bud nin fitnoobay oo reerkiisii khalad ka galay ama ilmihiisii ama dariska khalad ka galay taama ah bud tan idin weydiinahay laakiin waxaan idin weydiinayaa bud inma uridu allati tamuju kamawja al-bahr fitnadan ku weydiinaya warsanaya waxa weeye waa midda sida hirka badda oo kale u hiraysa sida hirka badda oo kale isdaba joogto culus midaas way midaan ku weydiinaya taa nabiga wax ma ka haysaa markaas wuxuu yiri Xudayfa waxaan ku yiri buu yiri malaka walaha ya amiir almu'minin oo taasi adiga maxaa idin kala galay maxaa adiga taa dan kaaga dhigay taas maxaa kaaga jira adiga maxaa yeelay in baynaka wa baynaha baban mughlaqa adiga iyo iyada waxa idin dhaxeeya irid xiran yani adiga ma gaadhaysid waa fitnadaas sida hirka badda isu daba taalay culuska badan taa adiga ma gaadhaysid ba irid xiran baa idin dhaxaysa waqtigeeda gaadhi maysid markaas wuxuu yiri Umar afa yuksaru albabu am yuftah iridaasi miyaa la furi doona mise waa la jabin doona buu markaas wuxuu yiri bal yuksar ma waa la jabin doona buu yiri Umar markaas wuxuu yiri dalika ahra alla yughlaqa abada taasa waxay u dhowdahay hadiiba la jabiyaba inaan dib loo xidhinba ifahana waxa weeye irida hadii la furo in dib loo soo xidho way fududahay laana albaabkii baa wali jira laakiin iridii oo dhanba hadii la jabiyo soo iridu ma banaanayso marka bimaana wuxuu tilmaamayaa iridu fitnada furankeedu wuxuu ka bilaabanayaa Umar dilkiisa Umar markii la dilay wixii ka dambeeyay Uthman uu yimid wax yar kadib waxa bilaabatay fitankii baa bilowday oo keenay markii Uthman in la dilo keenay Ali ibn Abi Talib in la dilo labada khalifa keenay dagaaladii saxaabada dhexmar ridwaanullaahi calayhim fitankii ka dambeeyay aafaadkii isdaba socday halkaas markay iridu ka furantay haday furantayna ma xidhmayso oo say u furantay oo xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam waa rasuulku tilmaamayo ummadayda dhexdeeda marka seefta la dhigo oo dagaalkiiyo seefta ay isku bilowdo ma joogsanayo ilaa qiyaamadu ka timaado bimaana aafaun ma aha ummadoo dhan inay ibtiloobayso ma oo la tazaalu ta'ifatun min ummati koo hagaagsan iyo qaar hagaagsan iyo meel degan iyo mar walba waa jiraya laakiin meel markay degan tahay ba meel unba aafadu ka socota imtixaanaadka iyo aafaadkaasi marka waa jirayaan taas waa xadiisku tilmaamay fitnada caamka way midaan ka hadlayna marka intaynaan guda gelin sidoo kale inaan ka hadalno asbaabta looga badbaadi karo fitanka iyo mowqifka loo baahan yahay in laga istaagiyo waxaad samayn lahayd xilliga fitanku dhacaan intaynaan gaadhin waxa muhiim ah iyadana inaan tilmaano fitanku meesha ugu horeeyay saameynayaan waa qalbiga intaynan xoolaha saameynin oo inaan dalka saameynin oo inaan dhiigga saameynin oo inaan amniga saameynin meesha ugu horeysa fitanku ay saameynayaan waa qalbiga qalbiguna waa xaruntii jidhka waa ala wa inna fil jasadi mudghah haday halowdo marka oo qalbigii fitan galaan jidhkiina waa halaabaya waa fasaadaya noloshiina waa fasaadaysaa waxay noqonaysaa nolol fasaadsan oo fidnaysan bay noqonaysaa marka meesha ugu horeysa fasaadaysa waa qulubta waana macnaha uu tilmaamayo xadiidkii Xudayfa ibn al-Yaman Ahmad iyo Muslim ay soo saareen nabigu sallallahu alayhi wasallam تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا فتنك waxa loo bandhigayaa qulubta sida galaha ama darinta laamaheeda mid mid si kala dambayso isdaba taala loogu soo bandhigo markaas nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay marka fitanka iyagoo isdaba yaala qulubta loo bandhigo ayay qulubtu laba qaybood noqonaysa fa ayu qalbin ushribaha nukitat fihi nuktatun sawdaa qulubta qaarkood markay fidnada timaado waa cabaysa sida suufka ama isfinjiga oo kale oo biyaha iyo waxyaalaha qoyan u nuugo oo kale ba qalbigu wuxuu nuugaya oo cabaya fitnadii buu cabaya markuu cabo qalbigii marka waa madoobaanaya dhibic madow baa ku iimaanaysa waa mugdiyoobaya waa daxlaysanaya
iftiinkii iyo nuurkii wax ku kala garan lahaa buu waayay aqoontii baa ka lumaysa hawadii baa qaalib ka noqonaysa khayraadkii iyo wanaagii ku jiray baa yaraanaya sharkuna waa ku badanaya quluubtaasi waa madoobaatay ficlan waxaa saameeyey fitnadii loo bandhigay baa saamaysa wa ayu qalbin ankaraha nukitat fiihi nuktatun baydaa qalbigii fitnada marka loo soo bandhigo diida oo tufa oo ka xajiimooda oo aqbali waaya asagana waxa uu ka helayaa nukat baydaa bimacna calaamada cad iftiin baa la siinaya nuur baa lagu irsaaqaya waa la dejinaya xaqii baatilkii baa la kala tusaya jidkuu mari lahaa baa la waafajinaya qalbigaasi waa cadi qalbigana waa madowya maxaa ka dhigay fitankii loo bandhigay baa saa ka dhigay inta kaliya meeha nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray labada qalbi ee midna cad yahay oo fitankii diiday midna madoobaaday oo fitankii uu nuugo aqbalay labadoodaasi haddana midna wuxuu noqonayaa mid adag oo sida dhagaxa sibsibkoo kale ah oo wax geli karo shar ama jiro midna wuxuu noqonayaa siduu nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam mid madow oo sidii weel la rogay oo kale ah weel la dabagadiyay shar baa ka buuxa oo daxal baa ka buuxda oo mugdi baa ka buuxa oo xumaan baa ka buuxda oo xasad baa ka buuxa oo nacayb baa ka buuxa oo waxa ka buuxa yaani xumaan jacayl baa ka buuxa asagoo tif ah ayaa marka la dabagadinaya af baa loo rogaya haddii af loo rogo marka meel khayr ka gala male la yunkiru munkaran wala ya'rifu ma'rufan illa ma ushriba min hawa wixii ku jira ee xumaan amooyaane khayr kaloo soo gali male maxaa yeelay weel isaga dhanba afkiisa la rogay hada maxaa gali kara way meeshii wax ka gali lahayn oo dhawaa rogan yahay marka saameynta ugu weyn marka hore waxa qaadanaysa qulubta qaadanaysa saas daraaddeed haddaad aragto ummad fasaadsan fasaadku intuusan banaanka u soo bixin markii hore qulubtooda halowday markay qulubtooda halowday kadibna xubnihii baa halaabay xubnihii markay halaabeenna noloshii bay haleeyeen dhiig daadanaya wax kharimaya qabyaalad kooxaysi guruubaysi muxuu ahaay deegaamo aafaad waxaasoo dhan waxaa ka horeeyey xaruntii jidhka ugu muhiimsanayd baa markii hore halowday saas daraaddeed sida saxda waxa weeyaan haddii la doonayo in wax la daaweeyo meeshii wax ka halaabeen in laga soo saxo waa in qalbiga laga soo saxo ummadda qalbigeeda la toosiyo oo qulubta la soo saxo oo meeshii wax ka kharimeen marka hore wax laga soo hagaajiyo markaas ummaddu soo hagaagi karta laakiin qulub halaysan haddaa tidhaahdo uun korkaasaan ka dheehaya wax badani hagaagi maayaan intaa kadib haddaan u nimaadno mowduuca sulbigiisa oo ah fitanka dhacay ficlan waqtigan hadda aan joogno iyo zamanka aan joogno iyo noloshaan ku noolahay inay fitan aan ku jirnaayey shaki kuma jiro meelo fara badan inay aafaadkaasi ka jiraanna shaki kuma jiro innaga si gooni ah mujtamacan soomaaliga ah inaan fitan gallay iyo zamanu fitan iyo marxalo fitnana ayadana laba isma weydiinayso bal fitanka meeshii ugu dambaysay inaan gaadhno oo khilaaf iyo burbur keliya ma ahee wixii ilaahay xarimay oo dhan ee muxuu ahaay muxaramaadkii daahirka in la xalaashaday dhiig la daadiyo xumaan la jiiro muxaramaadkii oo la iska xalaashado muxuu ahaay qaran burbura ummadii oo qaxda gaalo dalkii degta waxaasoo dhan aafaadkaas oo dhan waa fitan iska cadwa marka haddaan fitan ku dhex noolahay xagee loo baahan inaad istaagto maxaa xal ah adiga seebaad u badbaadi kartaa seebaad se aafada iyo balaayadan dhacday khafiifinteeda ama daaweynteeda aad qayb uga noqon kartaa طبعا waxaa u horeeya intaadan adigu wax daaweynin horta adigu waa inaad daaweysan tahay marka hore adigu waa inaad daaweysan tahay adoon fayoobeyn wax ma daaweyn kartid haddaad jiran tahay adaa u baahan dhakhtar lagu geeyo kow
waa in dadka wax cilaajinayo wax daaweynaya dad fayow ay yihiin oo cudurrada iyo fitanka iyo aafaadka mujtamacan saa u galay waa inay ka fayow yihiin markaas cilaajku iyo muxuu ahay daawada ay gudbinayaan iyo waxay ka hadlayaan markaasuu noqonaya wax anfaca ama wax tara haddii marka aan si degdega waqtiga iska gaaban aan u dulmaro asbaabta quraanka iyo sunnada ku soo aroortay ummad fitna ku dhacday badbaadin karta ama ruux fitna ku dhex jiray uu ku badbaadi karaa asbaabtaasi waxa kamid ah kow لزوم الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح وإن روح أول لازمه أما مجتمع أول لازمه كتاب كأله هي السنة النبي صلى الله عليه وسلم إيوه dhaqankii iyo fahamkii saxaabada iyo taabiciinta iyo a'imadii waaweyna fahamkoodii iyo dhaqankoodii waa dariiqa ugu muhiimsan ee ummadi ay ku badbaadi karto fitankana ay kaga bixi karayso waad garanaysaan quraanka kariimka xilligii uu soo degayo nabiga waxyigu sallallahu alayhi wasallam ku socday magaalada Madiina oo markii dambe magaaladii nabiga sallallahu alayhi wasallam saldhiga u noqotay waxa ka jiray dagaalo taariikhi ah oo qabaa'ishii meesha deganeed ka dhaxeeyay waliba laba qabiilo walaalo ah oo dhalasho ahaan isxiga oo darisoo magaalada wada daga ba muddo dheer dagaalamay ilaa ay odayaashoodii iyo akhyaartii iyo waxgaradkii iyo ugaasiyadii iyo madaxdii iska laayeen eber ka dhigeen Allah tabaaraka wa taala wuxuu ku daaweeyay quraanka kariimka markay qaateen oo nabiga rumeeyeen oo ka run sheegeen inay diintan ay iltizaamaan wixii dhib ahaa waa daawoobay mushkiladaasi waqti dheer soo jirtay sanado badan si walba la isugu dayay heshiisyaa laga galay odayaal baa u fadhiistay shirar baa loo qabtay waa la isugu yimid salkeeda waa la gaari waayay xididkeeda waa la gaari waayay laakiin markay kitaabka quraanka qaateen oo ilaahay rumeeyeen oo nabiga raaceen salawaatu rabbi wa salaamu alayhi khalaas ومد ربنا تلمامه تبارك وتعالى وليه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها تذكر الشيء اسخلاف سن اسنعب بعض هيدا قد نار بعد قرك أصار نيدين إلهي بايدين كبت بادي نعمتها حصوص تبولي ربي تبارك وتعالى ساس تراد حلقة رسمية أساسية وتايا له ومعنه تلمام يا النبي أنه صلوات ربي والسلام عليه مركأ حديث عرباض بن سارية عند أهل السنن والنبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عدي نولاتون في كسنتو أو يدين كمل وحو أركدونا اسخلاف هذا فربنا اسخلاف كليه ما اسخلاف هذا كربدان فربدان ومد كلا جيده كوخو ما حل وحو النبي صلى الله عليه وسلم markuu cudurka sheegay buu daawadiina daba dhigay fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafaa'i ar-raashidin al-mahdiyyin min ba'di dariiqayga qabsada dad rabtaan inaad ka baxdaan balaayada iyo fitanka ka badbaadaan dariiqayga qabsada sunnadayda qabsada sunnadii khulafaa'u ar-raashidin qabsada waxaad iska jirtaan wayaakum wa muhdathaati al-umuur waxyaalaha dib laga keenay diin la idin ka dhigi doonana iska jira laana muslimiinta khilaafkoodii burburkoodii islayntoodii fitanka asal waxa uu ah khilaafka ku salaysnaa ittibaacu al-hawa iyo sunnadii nabiga la garamaro salawaatu rabbi wa salaamu alayhi marka halka ugu muhiimsan wax weeyaan inay ummadani aqbasho inay ilaahay kitaabkiisa u noqotiyo sunnadii nabiga salawaatu rabbi wa salaamu alayhi maadaama ay ummad muslima tahay maadaama ummad muslima ay tahay oo ina maanta ka murmaynin كتاب إلهي محقبة نبي محمد محقبة وحو ليوين محقبو أها سؤال شاسي ما دام أين نشرين إني التزام تو رقان أهان إيو مبدأ أهان إيو عمل أهان أيو قادته حلك إلهي تبارك وتعالى وقضبك أقوه الرئيه حل النقون كروا قضبك الله وادي وحوي لزوم العلم والعلماء الربانيين إني
shakhsiga ama ummaddu ay laazimto cilmiga iyo culimada laana fitanka asal waxa uu ah in badan oo kamid ah jahliga aqoon darro aqoon baa marka lagu xaliyaa aqoon baa lagu daaweeyaa aqoonta dadka xambaarsanna waa culimada rabbaaniyiinta ah ee isku darsaday aqoonta shariicada iyo haddana camal fal alla ka cabsi laana hadduu ruuxu culimo yahay oo diinta aqoon u leeyahay laakiin uusan camalkeedii alla ka cabsigeedii xambaarsanayn waa qoladaasi waa culamaa usuuwa waa dadka ummadaba looga baqaba ee nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam ummadayda cabsida ugu badan qabo ee aan uga baqayo waxa kamida a'immatu dalaal a'immada yaani dadka madax diineedka ah oo aqoon iyo wuxuun ummadda intay ku caanbaxeen haddana luminaya oo jidkii garan marinaya marka iyaga lunsan dadkana waa luminaya kama aha kan ka hadlayno laakiin waa nin caalim ah aqoon diinta u leh kuna darsaday inuu diinta ku camal falo alla ka cabsina xambaarsan qolada iyaga ah in la laazimo oo yaani wax weeyaan laga qaato diinta laga qaato oo iyaga talooyinkooda la yeelo taasi waxay kamid tahay waa asbaabta ugu muhiimsan ee fitanka laga baxo Allah tabaaraka wa ta'ala quraanka kariimka buu macnaha ku tilmaamaya wuxuu leeyahay walaw radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قليهن وررك لا soo baxay ayagu wararka raadinaya haday Allah iyo rasuulkiisa iyo ulil amriga u celin lahaayeen way heli lahaayeen waxay raadinayaan si fudud bay u heli lahaayeen xaqiiqadii bay heli lahaayeen markaas waxa laga dambeysiyay haday inay jiri lahayn ilaahay fadligiisa ilaalinta ilaahay idin ilaaliyo cilmiga iyo culimada iyo ulil amriga alla idin ku ilaaliyo hadayna jiri lahayn shaytaan baad raaci lahaydeen illa in yaro idinka mida mooyee marka himaayada shaytaan ruuxa ka ilaalinaya waa cilmiga iyo culimada inuu iltizaamo oo dariiqooda qabsado oo iyaga ka ag dhawaado oo cilmiga dhageysto oo uu muxuu ahaay talada ula noqdo oo khaasatan nawaasisha iyo qadaayaadka mustajadaadka xaalaadka cusub ee ummadda haysta in loo celiyo ehelkeeda loo daayo oo muxuu ahaay nin tooxsiga iyo leedafuulka iyo qasbashada la iska qasbanayo laga daayo ahlul ikhtisaaska in loo daayo taas waxay kamid tahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee fitanka lagaga bixi karo waxa ku tusaya حديث النبي صلوات ربي وسلام عليه أحمد يا شيخان كاسو صاري نبي يقول إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل بنبي صلى الله عليه وسلم ساعة قيامة وحي روحا كسو هرية مالمه جهل قدقي دونه علمي كان لقادي دونه إسلينتنا بدن دونت وفي رسالة علمي مركا لقادو قاديديس حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين بات المامية قابك علمي لو قادي علماء الله لينيا علماء دمانيس علمي ولا تغيان wax ka reebayana ma jiro sidaas cilmigu ku tagaya cilmigi laqad jahli ba dagay jahliga markuu dago cilmiguna tago ayaa waxa bilaabanaya qatliga iyo islaynta harjiga marka inta culimada iyo cilmiga iyo aqoonta diinta iyo ehelkeedu badan yihiin yaani fitnadu waa xijaaban tahay kullama jahli ummadda ku soo bato fitnadu waa ku soo badanaysa xalku marka waxa weeyaan in cilmi lagu xaliyo ummaddu wax barato culimada lagu xidhmo dadka aqoonta leh lagu xidhmo qadaayaadka ehelkooda loo daayo waa qaybaha ugu asbaabta ugu muhiimsan ee xalka keenaysa kamid laana waxay yiraahdaan culimadu sida Hasan ibn Hasan al-Basri oo kale ka sugan waxay yiraahdaan dadka ahlul cilmiga diinta aqoonta u leh fitanka waxay arkaan iyo dhibaatooyinkooda markay soo socdaan ummadda jumhuurteeduna waxay aragtaa markay fitnadu intay waxay galaafan lahayd galaafatay ay tagto marka hadda nin walba wuu arkaa nin walba waa u muuqdaa markay wax burburiso oo qaran dumiso oo ay dal baabi'iso oo amnigii meesha ka saarto oo in badan aakhira u dirto qubuurta galaan oo la isku habsado masaa'ibi ka dhalato marka nin walba wuxuu dhigay wallahi sidan ma mooday war balaayoodina waxana soo socdo marka waxa weeye waa caasha garatay nin walba uu garanaya marka
laakiin markay soo socoto bilowga tahay balaayaday gadaal ku wadato ninka aqoonta la garan kara waxa tilmaamaya macnaha fi suurati alqasas aakhirkeeda markii laga warramay ninkii la dhigi jiray qaaruun iyo reer bani israa'iil siduu u fitneeyay Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu sheegay dadkii way qaybsameen markii qaaruun uu la soo baxay bahadiisii iyo yani waxa weeyaan kibirkiisii iyo isla weynankii iyo oo dadka uu nasaraxaadiyay qaar badan oo kamida waa ku kadsoomeen Allah wuxuu yiri tabaaraka wa tacaala markuu ka warramay qala alladheena utul ilma waylakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan war ha ku kadsoomina ninkan wareersane muxawaalane iimaan iyo amal saalix kaasa khayrku ku jira wax yar kadib ninkii waa ka dhulka la gooyay markii dhulka la gooyay arkeen kuwii shalay wax moodahay waa kuwa yaabay oo yiri war waa khaldanay way ka an Allah yabsudu rizqa liman yasha war ilan rizqa cidil doona la siiyaa loo waasixiyaa ilan isma laha rizqo la waasixiyay iyo jacayl ilaahi waa kala gedisan yihiin war waa khaldanay waa goorma waa mar ninkii dhulka la gooyo aafadiiba indhaha nin walba arkay waa laakiin culimadu goormay ka digeen markay arkeen ninkan oo iskibrinayo isqaadqaadahayo xaraga kibir ku socda bay ka digeen oo yiraan war meel xun buu ku socda marka ayada iyo nusuus kala laga qaadanaya macnaha isaga waxa kamida waxyaalaha loo yaani asbaabta fitanka lagaga badbaadi karo xilliga fitanku ay jiraan in aqliga la tahkiimiyo bimaana in la kaadsado lagu dadaalo tarayuska tathabbutka تحكيم العقل عواطفته اي حماسك حوجه بدن markaasoo kale meel male markay fitan taagan yihiin العواطف عواصف حماسku marka waxbuu burburiyaa waxbuu qaribaa markaasoo kale odaynimo u baahanta aqli bay u baahanta deganaanshay u baahanta miisaanaan bay u baahanta kaadsiyooni bay u baahanta lama dhex orto saanu tagi doon saas daraadeed nabigeenu wuxuu tilmaamayaa sallallahu alayhi wasallam xadiidkan sidoo sheegayo xilliga fitanku ay dhacaan ummadda aqligeeda baaba'aya wax garadkoo dhan baaba garashadaaba ka tageysaba markaas waxa isku soo haraya kuwa aan aqli balahayn waxa tilmaamaya xadiidka Abu Musa al-Ash'ari Ahmad ibn Majah ya soo saaray xadiis saxiix nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inna bayna yaday sa'ati al-harju saacada waxa ka soo horeeyay qiyaamada layn la islaynto markaas nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam al-harju al-qatl wa dilka dadku ay isdilayaan wama huwa qatl al-kuffar ma aha macnaha lagama wado gaala aad dilaysaan oo laynaysaan ma aha walakin qatl al-ummati ba'daha ba'daha laakiin waa ummadda muslimka qaarkeed qaarka kale inay layso kaasa harjiga laga wado hatta inna ar-rajula yalqaahu akhuhu fayaqtuluhu ruuxa walaalkii baa la kulmay markaasuu dilaya muxuu u dilay ma yaqaan kan la dilay maxaa loo dilay ma garanayo la yadri al-qaatilu fima qatal wala yadri al-maqtulu fima qutil kan wax dilayna ma oga sabab uu dilay kan la dilayna ma garanayo sabab loo dilay sababtu maxay tahay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam yuntaza'u عقول أهل ذلك الزمان ضدك وقت جاء عقوشودي وابل السيبيبة كرشدي عقلي يوم بمكان ويخلف لها هباء من الناس عقوشي مركا لقى قادم إيشا وحا إيمانا يا مركا ضد سيدا بوسط أو كلا سيدا بورد كسمان بوسط ضويش وضو ضد آدو فضود وان عقل لهين وان ميزانين وضويش كل بدك دون تقو قاديس oo hawadii timaadaba ay leexinayso la tagi karto dad aad u aqli yar oo masaalixdii aan garanayn oo wax walba ku tumanaya oo danahooda iyo gacantooda ku burburinaya kuwa noocaas oo aqligiiba ka maqan yahay baa iimaan doona ibn sallallahu alayhi wasallam yani fitanka keenay fitanku markay adkaadaan oo ummadda shiilaan oo muddo ku dhex jiraan garashada ka tagaysa uquusha ka tagaysa nabigu sallallahu alayhi wasallam يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء بدن كود وحي موديان إني وحيستان إني حق كدل سجين وحي هيستان ما تشربوا النبي صلى الله عليه وسلم عليه
marka maxay u baahan tahay waxay u baahan tahay xilliga fitanka kaadso hubso tartiibso caqliga isticmaal wax miisaan hadegdegin haddaadan xataa cilmi aqoon lahayn caqligaaga aad u rogrog xaaladda miisaan dayshka iyo fudaydka iska ilaali laana waa meel aan lagu khamaari karin waa meel mustaqbalkaagii oo dhan gubahaya waa dab holcaya dab holcaya iyo balaayo aafo kacsan oo adduunkaagiina gubay aakhiradaadiina halis ugu jira ma aha meeshii lagu khamaari lahaa ma aha waa meeshii ruuxu uu taxadarkiisa qaadan lahaa oo is ilaalin lahaa xadiidkaasi macnahaasuu tilmaamaya saas daraaddeed baa nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi nimankii u horreeyey oo ummaddan fitnadeedii iyo khilaafkeedii iyo burburkeedii iyo dagaalkeeda bilaabay khawaarij bay ahaayeen saxaabadii laayey ummadda la dagaalamay dhiiggeeda bannaystay oo aafada kiciyey khawaarij bay ahaayeen u fiirsa nabigeenu sal alla alay wasalam sifaadka uu ku tilmaamay laba qodobba wuu ku tilmaamay kow wuxuu ku tilmaamay caqli yari talabaadna wuxuu ku tilmaamay waxa la yidhaahdo da'yari xudathaau lasnaan sufahaau laxlaam caqli yari iyo fudaydna waa ku jira da'yari oo da'yari haddii la yidhi bimacnaa waaye arag ma aha waaye arag ma aha ruuxu markuu da'yar yahay nolol badan ma soo noolayn adduunka wax badan kama soo arkin waaye arag ma aha maskaxdiisu ma bislaanin saas daraaddeed waaye aragnimo la'aan iyo waxaa isugu daratay iyo fudayd caqligooda iyo garashadooda ku jira marka xilliga fitanka inta badan dadka ay fitanku xaadhaan waa dadka noocaas waa dadka u fudud fitanka u fudud waa dadka da'yarta u badan waa dadka xamaaska badan waa dadka aan waxba ka fiirsanin waa dadka muxuu ahaayey uun sida yani waxa weeye baalalaydo kaleeto meel walba isaga daata dadkaasay fitanku xaaqaan oo ayna waxba u reebin saas daraaddeed waxaa u baahan nahay xilliga fitanku taagan yihiin miisaan baa loo baahan yahay caqli cilmi deganaansho iska hubi ha degdegin waxyaalahaasoo dhan baa loo baahan yahay si loo badbaado waxaa ka mid ah waxaa nabigeenu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh fitanku xilligay imaanayaan ummadda diinteedu waa khafiiftay waxaa qaalib ah maadada qaalib ku ah intay diintu xoog badan tahay oo arrimaha diinta ay ummaddu aad u danaynayso fitanku inta badan ma yimaadaan laakiin goorma yimaadaan marka xagga adduunyada loo bato oo jaga mid raadinahay iyo mid xoolo doonahay iyo mid magac doonahay iyo markii dhankaa loo bato oo mabaadi'dii diiniga ahaabaa la gacan bidixeeyo xilligaasaa fitanku inta badan yimaadaan u fiirsa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka xilliga dajaal imaanayo oo in badanoo ka mida dadku ay fitnoobayaan waxa uu ku fitnaynayo waa maaddo weyn waa maaddo waa adduunyo waa dhaldhalaalkeed leanna macaalimtii diintaa yaraaday sidaas daraaddeed xilliga fitanku taagan yihiin ruuxu inuu xirsiga faraha badan iyo dadaalka faraha badan ee adduunyada kuraasta iyo jagooyinka iyo xoolaha iyo magaca iyo inuu aad iyo aad isaga fogaado oo iska ilaaliyo waxyaalaha ugu muhiimsan ee badbaadada keenay ka mid waa ilaa waxaa dhacaysa inaad diintaadiiba gadato aad waxoogaaga adduunyada asiidasato waana macnaha nabigeenu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid abi hurayra axmed iyo muslim baa soo saaray ee nabigu yuri sal alla alay wasalam baadiruu bilacmaali fitanan ka qiطaci alleyli almudlim yani fitnooyinka ka degdegoo ka hormara acmaasha wanaagsan uga hormara acmaasha wanaagsan ku hormara intayna fitanku idiin imaanin fitankaa markuu nabigu tilmaamay wuxuu yihi yusbixu الrajulu mu'mina wayumsi kaafiran say wax isu rogrogahayaan isu badbedelayaan ruuxu waagu wuxuu u baryayaa isagoo mu'min ah masaajidkii salaaddii subax buu tukaday waa hagaagsan yahay waa muslim waa mu'min galabtii haddii la gaadhana waaba gaal diintii waa ka baxay wayumsi mu'minan marna galabtii buu soo gaadhayaa habeenkii baa u soo gelaya isagoo mu'min ah
ويصبح كافرا واجو هدو برينا وابا قالوا بيبا محا دعي صوت محيط والنبي صلى الله عليه وسلم يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل دين تيسي ووحي إلهي بحي وحي وقال سناء باوحو داف سنايا أو كوئيب سنايا داف يرأو الدنيا دينتي لما دانايو قيمة وين ملها آخر دي قيمة وين ملها وحيرو الدنيا بالا داف سنايا الدنيا ودبا من قيمة لها ينبا كرسي كذا مقعيدا حوله هذا شهوات كذا قيمة ملها وحا أن قيمها لهين بو دينتي سي داف سنايا محايا لي وحا غالب ومركها تشيرا تقديس المادة عبادة الدرهم والدينار الدنيا دا العابدو يدو وين قلوبتي كوين تهي dadkii bay la weyn tahay diintii iyo macaanidii iyo aakhiradiina waa fududahay maalinka isaga wax kasta marka oo khayraad iyo wanaaga laga tilaabsanaya si loo gaaro waxaas xunka ee ruuxu u raadinayo waxa kamida xulusha fitanka lagaga badbaadi karo luzumu jamaacati almuslimiina wa imaamihim in wujid muslimiintu haday leeyihiin madaxdana ay raacsan yihiin oo wada jiraan meesha muslimiinta madaxdooda iyo mujtamacooda uu jiro laazim kooxaha ku kacay ee ku kacsan ee la dagaalamaya kacar iyaguna iskhilaafsan nidaamkii muslimiinta jirayna khilaafsan kuwa kacar maxaa yeelay nabigeena salawaatu rabbi wa salaam alayhi xadiidka xudayfa ibn maaja iyo qeyrkii baa soo saaray lafdigan hadda aan sheegayno nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam takunu دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها وحا أهان دونو إيمان دونا دعاة إردها جهنم التاغن عدي يشا يريتان كودنا جهنم يكتوريان هم قوم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا وضد إن لتشير أواي إنك دحي مادين لو قد إننا ويكوها الليان محان سمياب رسول الله وحول فلزم جماعة المسلمين وإمامهم مسلمين تودا تشيركودا هي مدحدودا لازم بويل فإن لم تكن جماعة ولا إمام ودا تشير مسلمين ودا تشير هدين تشير مدحنا مسلمين تو أين لهين والدولة دي نظام كي بربراي مركا محا تلا فاعتزل تلك الفرقة كوحها إسلين يسكورش هذا اسكو ابتليسا كل قد سقعر ولو أن تعض بأسل شجرة حتى يدركك الموت وأنت كذلك إلى جيريدو كوتي مادو أديكو جيت سلكي قنينسن يعني حتى هذا كو كلفته إن هذا مجتمع لن يسعر وبادي أنت تقدر جيت سلكي سكوم متدو وسيدا ما نسلو قلي يعني أبار شوكتو أردن جيت كسلكي سأتكون دكتور قنينتو وهلك جيريدو كوتي مادو حتى هير كابعد قاعد يسقط بحب النبي صلى الله عليه وسلم مركا هذا يشيران وذا تشير مسلمين وذا تشيرا أي تشيران مضح إليهن لازم كواسي معناها محو هاي بدبادو هلكاسي كجرتا او تجدونا مدحداسي iyo muslimiinta wada socda inay dad madaxdaasi saalixiin oo wanaagsan inay yihiin laazim ah hatta madaxdaasi ha noqdeen madax si wax ka yihiin laakiin maadaama nidaam jiro nidaamkaasina ummadii raacsan tahay nidaamka isaga ha ku bixin أو تجدونا وحيكم التاهي حلوش قار كم يدوي أو ينصو صعد إن شاء الله تعالى وحكم إذا أسبابته نصوص تكتمد في تنقل جنب حكريه لزوم البيت وملك اللسان والتفرق للأمر الخاص هذا وحبك بنكرين مصيبة تالية نبكي تالنا آدم وحبك خفيفين كرين واجب كاغو مركا وحويان قولي كاغا لازم عرب كاغانا عشو arrimaha khaas kana ku mashquul danaha guud iyo ka hadalkood iyo danayntoodana iska badaa xama qaban karti Soomaa dabkan holcaya hadaadan wuxuun ka dabin karin waxa ku darin qaybaha ka noqon lafahaaga la car danahaaga gurigaaga reerkaaga caruurtaada laana kullama aad danayso fitanka ayaguna waa ku danaynaya
kullama aad hal tilaabo hore ugu qaado iyadoo labay ku soo qaadaysa shanta haddaad la gasho 10kay kula galaysa aduu qiyaastaad u gasho waa saas daraadeed nabigu wuxuu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh danahaaga khaaska ku mashquul haddaadan waxba ka qaban karin dhibaatada jirta adigu isaga carab xadiidka waxaa tilmaamaya oo macnaha sheegaya xadiid xaakim soo saaray min xadiidka cabdillah ibn camr ibn caas oo isagana saxiixa nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam idaa ra'ayta annaasa qad marijat cuhuuduhum wa khaffat amaanaatuhum markaad aragto dadkii oo cuhuuddoodii iyo ballantoodii iyo ittifaaqiyaadkoodii iyo heshiisyadoodii ay isku qasmeen amaanaadkoodiina ay baaba'een oo khafiiftay amaanadii dadku wa kaanuu haakada washabbaka bayna anaamilihi sidaana ay noqdaan oo ay iskhilaafaan oo isdaba maraan iyaga dhanba ay kala jeedsadaan hee falzam baytaka wamlik calayka lisaanaka wakhud maa tacrif wadac maa tunkir nabigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam gurigaaga joog baasha dhex orodkeeda iska daa carabkaagana cesho oo ka adkow warkan faraha badan iska daa taxliilaadkan faraha badanina waxba aan soo korin iska daa fadhi ku dirarka iska daa taagni ku dirarka iska daa taxliilaadkan waxba keeni maayaan carabkaaga cesho gurigaaga joog danahaaga ku mashquul diinta waxaad qaadataa waxaad garanayso qaado waxaad inkirtana isaga tag waxaad qoonsato ha ku muqaamarayn ha ku khamaarin wixii cad oo bannaanka yaalla qaado wixii aad garan weyda aan mugdi kaa galo isaga carar ixtiyaad u qaado diintaada ixtiyaad u qaado diintaada markaasaa nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam wa calayka bikhaasati amrik arrinkaaga kiisa khaaskaa laazim danahaaga khaaska caruurtaada reerkaaga ganacsigaaga beertaada dukaankaaga xafiiskaaga tacliintaada danahaaga khaaskaa ku mashquul dad baa laga yaabaa inay la yaabaan oo yidhahdaan dana khaasaa lagu mashquulo baasha laysaga tago oo maxaa soo kordhay waxaa soo kordhaya waxay tahay aafada dhanba waxaa abuuraya waxa weeyaan waa dhexgalka la wada dhexgalayo hadduu nin walba gadaal uga istaago soo ma khafiifayso ama ma baaba'ayso saas wey laakiin dhibaatadu waxay ka jirtaa nin walba waa danaynaya nin walbana waa gelaya saas daraaddeed baa nebigu sal alla alay wasalam waa xal asaaska ka soo bilaabanaya waa adiga dib uga bax danahaaga qabso kanoo dib uga bax danahaaga qabso kanoo dib uga bax danahaaga qabso oo meeshiisoo dhibkii yaraan maayo marka dhibkii waa yaraanaya macnahaasuu nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wadacanka amra alcaama arrimaha guudna iska badaa baa lagu arrimaha guud iska daa hadda waktigan la joogo taqriiban dhaqanka dadka marka la fiiriyo waxaabad moodaaba arrimaha guud iska daa ruux la yidhi daruuriyaadkaaga iska daa oo kale ka dhiganta leanna dadka kooda yar kooda weyn raggooda dumarkooda kulli waa siyaasiyiin kulli waa wada muxalliliin siyaasiyiin ah ruux walba wuxuu rabaa inuu mushaarakeeyo ra'yigiisa taladiisa xoolihiisa ficlan asbaab keenaysa waa jirta oo waagii hore fi'a mucayana unbaa siyaasadda iyo maamulka iyo kuraasida iyo danayn jirtay laakiin wixii hadda wuxuu noqday bificli warbaahinta iyo miidiyaha iyo noloshii ummadoo dhan wuxuu noqday inuu siyaasad lagu meeriyo khaasatan systemkan ka yimid reer galbeedka oo noloshii oo dhanba ku ururiyeyba kursi mid laga ridahayo iyo mid kursi fuulahay mid baa la dooranaya mid baa fuulahaya mid baa laga tuurahaya mid baa la caleemo saarahaya mid baa caleentii laga rifahaya wareedha noloshu saa wax ka gedisan baa jira fi'a mucayan oo mujtamaca ka mida bahasha haddanayso laakiin fi'aad fara badan inay bahasha isaga jeesadaan oo danahooda qabsadaan se wax ku hagaagi maayaan ummadse wada siyaasiya wada kursi doona kursigiina uusan u qaybsami karin oo hal midaya bal aduu sidhe xal ku imaan maayo sidaas daraaddeed in danaha khaaskaa la eriyado oo howlaha ummaddu kala mashquusho qayb bay ka tahay sida xadiiska nabigu tilmaamaya sal alla alay wasalam xuluushay qayb ka tahay ama dhibkiiba yarayn ama inay baabisaa laga yaabo qodobada muhimka waxaa ka mid a oo runtii
cilaaj weyn ka noqonaya haddii aynu qaadano fahano dhibka in haysto تعامل الناس كما تعامل نفسك وزنهم بالميزان الذي تزن به نفسك وكلهم أو كلهم بنفس الكيل الذي تكيل به لنفسك ضدك واحد كسو قادا أذوك له ميزان كنفط هذا وحقوق ميزان يسددك أنا أقول ميزان كأذوق كوبك أنا يسددك أقول بك cadaalad intaad samayso dadkaasoo dhan waxaad jeceshahay in lagugula mucaamaloodo ummadda kula mucaamalood waxaadan jeclayn oo naftaada in lagula yimaado aadan rabin ummadda hawla tagin mushkiladu xagee ka socotaa mushkiladu waxay ka socotaa ama ruuxba ama qabiilba ama ururba meesha wax ku jira ka saaraya ama midba meesha waxaan ku jirin soo gelinaya isiyaasid iyo xaqirid iyo tanaasul la'aan iyo sadbursi intay masaladu sadbursi iyo xasad iyo xadgudub iyo taagan tahay hada wax weeyaan xal ma imaanayo laakiin inaad adiga u soo tanaasusho dadku inay adoo kale yihiin waxaad adigu u baahan tahay u baahan yihiin waxaadan rabin inaysan rabin waxaadan yaani nacab tahay inay nacab yihiin adiga waxaad isla rabto dadka la rabo fitanku waa xal markaaba mujtamacu sahadu u bislaado wax badan baa bugsoonayo baaba'ay xadiidka nabigeena salawaatu rabbi wasalaamu alayhi macnaha tilmaamaya oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay xadiidka Abdullah ibn Amr ibn Aas innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yudulla ummatahu ala ma ya'lamuhu khayran lahum wa yunzirahum ma ya'lamuhu sharran lahum nabi ma jiro nabiyadii hore kamida illa xaq waxa ku ahaa korkiisa inuu ummatiisa tuso wixii khayr ee uu ogyahay وحي الشرع وجهين إنه أجدده وإن أمتكم هذه جعل عافيتها أو عافية في أولها ومدينا محمدية عافمات كذا وحال قد جاي بالله جدي صحابة دي قيبت هذه هو عافمات كذا الله يعلم وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ومدن آخر كذا وحى أصيب دونه بلايا أذق إيوه الرماء إنكري دونتان بلايا آفات بآخر كأمدن كل عدونه والنبي صلى الله عليه وسلم وتجيء فتن فيرقق بعضها بعضا فتنوين با إيمان دونا قارك كلا أي تشلعنيان فتنوين كلا علوس ومد الضنب أي كعلوس تامدي كوريس وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه موليكتي ثم تنكشف فتنة إيمان دونتا مركزو مؤمن كإلهي كبقى يوحو ليه ولا تنويتي هلاك إلهي ما أنت تنكبت بادي معي واتجيسا توكلا إيمانيس مركز وحلي هذه ألا لا تيجي رحمة أهين تنوي ميدانا ما أنت كبت بعدين فتن كلا دران وصاو كلا دنبيو كلا عرس با إيمان دون حلكم حوية النبي يقول صلى الله عليه وسلم مقصودك هو هلكن وحوي النبي صلى الله عليه وسلم فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه روحي دونية النار لغا فوقيه جننا لغليه geeridu ha u timaado isagoo rumaysan Allah iyo maalinta aakhiro dadkana ha u la yimaado waxa uu jecel yahay in loo la yimaado oo fiirsada fitankii baa laga hadlayaa Soomaa ismaan dhaafka iyo aafada iyo waxanba waxa keenaya waxbaan la isu ogoleen dadka wax u ogolow tanaasul dadka adoo kale ka soo qaad adeer haddaad jeceshay inaad kursi ku fadhiisato dadkuna waa jecel yihiin haddaad rabto reerkiina inuu taliyo dad kuwana waa jecel yihiin reerkooda inuu taliyo sidaas daraadeed dadka wax u ogolow tanaasul adoo kale ka soo qaad macnaha isaga iyo cadaalad insaafkaas markii la helo ummadda wax badan baa u daawoobay adiga haddaad lafahaaga ku dhaqantana wax badan baad ka badbaadaysaa hadday ka ummad ahaan iyo ka mujtamac ahaan aan u qaadanana balaayo badan oo maanta ina haysato shaki male xal baa loo helay laakiin intay mindi ku taag iyo anagoo reehebela iyo anaga iskale iyo kuraasta iyo xaq bursiga iyo waxan lagu jiro waxa weeyaan shaki male aafadu inay sii adkaato mooyaane xal badani la sugi maayo xadiidka isaga ah muslim baa soo saaray ahmed iyo muslim iyo nasaa'i baa soo saaray waxa kamida
xulusha muhiimka ah in dadku ay ka fogaadaan fitanku markay dhacaan meesha ay ka socoto inaad ka cararto waa hadaadan waxba ka qaban karin ha dhex boodin oo ha dhex ordin waxaa lagu yaqaanaa fitanka ishtibaah baa dhaca talbiis baa dadka lagu sameeyaa ruuxu inta badan kooxdiisa iyo qabiilkiisa iyo groupkiisu ku dhex jira mar walba marka iyaga isla garle ileen qolada kale gartooda maada dhageysanin hal dhag baa wax lagaaga akhriyaa ree hebelkan iyo kooxdan kale iyo groupkan ay sahaysaan baa xumaantiisa lagugu akhriyaa idinka tiinana waa laga qariyaa ma idraagi karti saas daraadeed idinka baa mujaahidiin ah idinka baa gar leh idinka baa xaq leh waa la inaga gardaran yahay waa inaan wax iska celino xaq baynu u leenahay marmarka qaarkood waxaa la daliishanayaa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid xoolaheenni baa laynagu soo weeraray xoolaheenna inaan difaacano oo aan iska celino shahaada baan ku qaadanay janna baan ku gelaynaa man qutila duuna maalihi oo markaad adigu dadka dulminayso weeraraysana ka kala markaa wuxuu daliishanayaa man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid طيب labadii qolaba man qutila duuna maalihi bay wataan wax suroobi kara in qoladana xaq wataan macquul ma laakiin aadamaha iyo shaytaanka wuxuu ku akhriyaa sidiisaba isagoon gar lahayn inuu u muujiyo inaad gar leedahay sidaas daraadeed ma gar lihid kooxdaaduna ma gar laha reerkaaguna ma gar laha dulmi iyo fitan baa meesha socda dulmi iyo fitan ayaa socda fitankaasi marka waxaad kaga badbaadi kartaa war adiga lafaaga la carar ree hebel haddaad u dhimato iyo haddaad u doodo iyo haddaad xoolo ku bixiso iyo haddaad waqtigaaga ku bixiso adduunkaagiina waa gubeen aakharana qabrigaagii iyo qiyaamadaadii iyo jannadaadii waa gubeen maxaad ugu xilan waa su'aal isweydiin leh qabaa'isha iyo kooxaha iyo gurubaysiga iyo muxuu ahay deegaamaysiga iyo balaayadan ummadda isku diray wixii ay burburiyeen yey ka burburiyeen aday ka burburiyeen soo qaxay adiga badaha ku baabaaye adiga qurbaha galay ee qaxootiga noqday adiga karaamada waayay adiga qarankaagii dumay adiga gaaladu ku qaybsatay aday ku burburiyeen intii tagtay waa direen intii dhaawacmay ama burburay waa burburiyeen xamarka ilaa hadda danta iyo maslaxada ku jirteed ka raadinaysa maxay tahay wax maslaxa iyo dan ka muuqata ma jiro allahumma in ilaahay qalbigaaga xidhan mooyaan oo yaani tastahkim alayka alfitan fitanku ay dhinac walba ka maraan mooy saas daraadeed hadaadan wax ka khafiifin karin aafada iyo musiibada ummadan haysata hadaadan wuxuu dhimi karin adeer meelahay wax ka socdaan isaga carar waxa nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi fitankaasi ruuxa fadhiyay uu dhaamaa midka taaganina wuxuu dhaamaa midka socdana wuxuu dhaamaa midka dhex ordaya man tasharrafa laha tastashrifu ruuxi u hanqal taaga ayaduna way u soo hanqal taageen man wajada fiha maljan aw ma'adan faly'ud bihi ibn sallallahu alayhi wasallam ruuxu heli kara meel uu ku cararo ama meel uu nabad magan galo oo kaga fakado ha aadabu nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidka kale Abu Bakr wuxuu nabiga sallallahu alayhi wasallam ka sii xeel dheer war ninkii geel laho geelaagii geelaaga isaga carar magaalooyinka dhan xataa isaga carar balaayadu ka socdo geeli baa badhaas la isku nabadbaadinay geeli baa la isugu yimid war ninkii ari laho arigaaga war ninkii beer laho beertaadii war ninkii inta midna aan lahaynooba intaad hubkaaga soo qaado jajabi kadibna hadaad carari karto meel uu carar nabigu sallallahu alayhi wasallam warka markuu yiri wuxuu yiri allahumma hal ballagtu allahu ma gaarsiiyay ibn nabi sallallahu alayhi wasallam allahu ma gaarsiiyay ilaahu marqaadi gashanay salawaatu rabbi wasalaamu alayhi yaani wax weeyaan markasta intaad adiga dhex gasho bayaduna ku dhex gali inta aad dabaalato bay ku qoyn inta aad ka fogaatana waad ka nabadgeli waxa kamida in laga shaqeeyo ummadda isu keenideeda isu ururinteeda maslaxaynteeda furqadeeda iyo kala geynteedana laga fogaado aafadu waxay ka bilaabatay saan sheegnayba ummadda qulubteeda kala jeesatay
kadibna masaalixdeedii bay burburisay xagee baa marka xalku ka bilowdaa in ummadda la isu soo jiido dadka ummadda burburinaya kala geynayana la qabto wixii laga qaban kara laga qabto laana wax weeyaan ummadda wada jirkeeda iyo quluubtooda la isu soo jiido wax u dhigma ma leh saas daradeed culimada qaarkood waxay yiraahdaan diintu waxay ku taagan tahay laba qodob waxay ku taagan tahay tawxiidul kalima wa kalimatu tawxiid macnaheena waxa laga qaadanaya aayadda fi suuratu shura ku jirta shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه شوف إلهي سيدو جمعية أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه marka labada kelimo asaas way in ummadda dariiqay ku socotana la saxo oo kelimatu tawxiid iyo muqtadayaadkeeda ummaddu ay qaado laguna mideeyo la isu soo jiido oo la isu keeno marka in laga shaqeeyo dad muslixiin ay jiraan ummadda khayrkeeda la isu jiido wixii dhex maray in la daaweyn karo la dhayi karo la isku dayo taa iyada waa xalka ugu muhiim musaalaxa wada hadal heshiis halka inay ka bilaabato haddaynan ummadani quluubteeda isu imaano la isu soo jiidin lama qasbi karo quluub kala jeeda dawlad ma samaysan karto quluub kala jeeda qaran ma samaysan karto quluub kala jeeda cadow iskama celin karto quluub kala jeediyo ummad iskhilaafsan waxba uma istaagi karaan sidaas daraadeed waxay wax ka bilowdaan juhdigan iyo dadaalkan faraha badan ee kursiga la gelinayo waxa ka muhiimsan in la geliyo juhdiga iyo dadaalka ugu far badan in la geliyo ummadan iyo sidii la isugu soo jeedi lahaa dhexdeedana musaalaxa iyo walaalnimo iyo midnimo iyo isjacayl loogu soo celin lahaa laana halkaasay asaaska iyo wax ka bilowdaan xadiis nusuus far badan baa macnaha tilmaamaysa oo hadda ka gaari karin waxa kamida si degdega in dadku ay isku mashquuliyaan cibaadada Allah tabaaraka wa ta'ala nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya xilliga muslimiintu islaynayaan ruuxa cibaadada uu khayraadka masaajidka taacaadka salaadka soonka waxay u dhigantaa sidii ruux aniga ii soo hijrooday oo kale maanta waxaan ugu jeclaan lahayn inaan nabi maxamed oo magaalada madiina jooga intaan soo hijroonno inaan la kulanno oo la noolaano sooma waxaan ugu jeclaan lahayn waxa la mid ah xilliga fitanku jiraan inuu ruuxu cibaadaadka isku mashquuliyo saasuu nabigeenu tilmaamay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa kamid ah qodobada muhiimka ah in xilliyadan oo kale waa la isasiraaye inaan lagu sirin xilliga fitanku taagan yihiin shacaaraad baa la isku jiraa laafitaat magac qurux badan baa la samaynayaa markaasaa dadkii lagu khaldayaa yaan lagu khaldin taxadarkaaga qab saan haddaba tilmaamaynay waxaa lagu sirayaa magac mujaahid waxaa lagu khaldayaa magac adaa xaq leh waxaa lagu khaldayaa xuquuq baa difaacanaysa mid wuxuu kugu khaldayaa muxuu ahaayey asmaa aad u qiimo badan shariicadii baan soo celinaya mid wuxuu kugu khaldayaa xilligan oo kaleeto marka aad bay u fududahay shacaaraadka barraaqa ah ee quruxda badan ee dadka lagu khaldo marka aad isaga jiro magaca intaadan ku kadsoomin madmuunka uu xambaarsan yahay iska jir madmuunka ka fiirso magaca iyo shacaaraadka iyo sheegashada ku khaldan waxa tilmaamaya xadiiska nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska ahmed ibn najah xaakim baa soo saaray sayati ala an-nas sanawatun khada'at dadka waxa ku imaan doona sanooyin khadaa'id badan yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhabu fiha as-sadiq sanadaha ruuxi runlowga aha warkiisa waa la beeninaya warna dhaaf baa la beenaalata beenaalihiina warkiisa waa la rumaysanaya wayutamanu fiha al-kha'in kha'inki waa la aaminaya wayukhawanu fiha al-amin ki aaminka ahana kha'inima lagu xukumaya Soomaaliyeed wixii oo dhan bay isrogaba kii fiicnaa oo saalixa oo danaha ummadda ka shaqeynayo khayrka wadayo waxa la leeyahay warkaas naga kaas ma waa danaysti waa kha'in waa jaajuus gaal uu shaqeeya kha'inki weynaa ee waxa soo dhanba ku jirayna waxa la leeyahay waa mujaahid waa khayr wale madadanaheeda iyadoo u baaba'aya iyadoo u dhimanaya marka kii saxda ahaana waxa la saarayaa shaabad khaldan kii khaa'inka ahaana waxa la saarayaa shaabad macaan buu qaadanaya halka marka waa la siraya wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa yantiqu fihi ar-ruwaybida xilliga isaga waxa hadli doona niman ruwaybida leeyda
ruwaybidadu yay taabale nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ar-rajulu at-tafih yatakallamu fi amri al-'am nin liita oo aad u xun oo qiimo lahayn oo danihii guud ee ummadda ka hadlay markaas fiiriso isagaaba dayacan ba ya isagaaba dayacan wixii yarka ahaa ee hoos joogay baa dayacan ciyaalkiisii baa dayacan dumarkiisii baa dayacan naftiisii baa dayacan waxba ku halaysan mayso xataa waxar lug lama raacsadeen waxar xataa naafa lama raacsadeen haddana maca dalika siduu yahay iyo wuxuu taxliilinayo iyo meeshuu isla joogo waad yaabaysaa arrimihii caamka waxaa ka hadlaya dad liita buu nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh dhinac kasta markaad ka fiiriso soo xaaladdu nabigu ka warramayo kuma jirno salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka waxaasoo dhan waxay u dhacayaan qasadku hadda yahay iyaan lagu khayaamin waqtigii nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa dhacay u fiirsada fii suurati tawba ilaahay wuxuu kaga warramay munaafiqiintii adigu miyaad aragtay dad magac masjid lagu sirahay masaajid wax magac masjid wata inta loo dhistay ayaa la doonayaa in dano gaalnimo iyo xumaan ah lagaga gaaro sirtu tooba ilaahay buu kaga hadlay tabaaraka wa tacaala walladina ittakhaduu masjidan diraaran wa kufran wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulah meeshan xaruntan la dhisay ujeedada loo dhisay shaqaday qabanaysa waxa weeye waa dhib diraar mu'miniinta in lagu qaybiyo lagu kala jabiyo dadkii Allah iyo rasuulkiisa la dagaalamay in saldhig looga dhigo lagu soo dhaweeyo in nabigii iyo mu'miniinta lagu dhibaateeyo xarunta saasa loo dhisay magaca la siiyay muxuu yahay maxaa loo bixiyay masjid astaantu waa masjid waadu masjid miyaad ka leexani waa waqtigii nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam hadii xilligii nabi maxamed magac masjid la isku sirhayo magac masjid waxyigii oo dagahay maanta maxaad moodaa waa adduunku khiyaanada iyo laqdabada uu ka gaaray meeshii ugu dambeysay marka yaan lagu sirin mara mu'min yaan lagu soo gashanin mara mujaahid yaan lagu soo gashanin mara nin dana iyo khayr wada yaan lagu soo gashanin haadaan yaan lagaaga tilaabsan yaan laga lagu meersanin miskiinkaaga miskiinkaagan xamaasaysan caadifaysan khayrka doonaya yaan lagu meel gaarin aafa iyo balaaya meeshan isdawada damareys oo muxuu ahay taqaatucul masaalih dana iswada hardinay adigana waa daacad baad iska tahay markaas god lagaaga tilaabsano khalaas sidaas daraadeed xilligan oo kale aad waxay raafidada nimankan shiicada raafidada la yiraahdo maxay ummadda ku sireen ummadda waxay ku sireen aalu beydkii baan jecelahay aalu beyti rasuulillah wariyaan aalu beydka jecel war nabiga eelkiisii ha loo heeliyo war aalkii waa la dulmiyay war nabiga soo ma jecelidin warkaas dad badan lagu siray hada xubbiga nabiga ay u qabaan ummadda muslimka iyo aalkiisa wax u dhigma male halkaas ay ka soo galeen khawaarijtu maxay ku sireen dhalinyarada oo saxaabada dagaalkooda ku galiyeen oo ilaa hadda fitanka iyo takfiirka iyo balaayada ay ugu burburinayeen oo muxuu ahay wax kale ma aha shacaaraad beena un bay u qaadeen waxay yiraahdeen waxaanu raadinaynaa inaan kitaabka ilaahay soo celino war kitaab ilaahay oo la soo celinayo soo qayb ka noqon maysaan manin baa dhigi kitaabka ilaahay la soo celin maayo in al-hukmu illa lillah allah warku quruxsana in al-hukmu illa lillah wa kalimatu haqq lakin yuradu biha al-batil bal riwaayaadka xadiista nabiga khawaarijta uu kaga hadlay waxa ku soo arooray inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam kitaab ilaahay bay sheeganayaan kitaabka ilaahayna bari buu ka yahay riwaayaadka xadiiska qaar kamid waxa ku soo arooray inuu nabigu yiri waxay sheeganayaan inuu yiri jihaadkooda dagaalkooda iyo dagaalkiina magaca jihaad bay ku socdaan magaca kitaabkii bay soo celinayaan bay ku socdaan marka waxa waa shacaaraad la isku khaldayo ala mustawa qabaa'isha waxa ka dhaxeeyana magac beena la isku siraya saaxada wadaad markay noqoto iyadana sidoo magac fara badan oo beena la isticmaalaya shacaaraad badan oo beena la isticmaalaya xilligay fitanku taagan yihiin marka yaan lagu sirin taxadar meel walba waxa la rabaa oodan hubin inaadan ku tilaabsanin warka waxaan ku gabagabaynayaa insha Allah ta'ala oo aan kaga baxaya in ummadda loo sabro
madaxdeeda maadaama balaayada ugu badan ee fitanku ka imaanayso kuraasta iyo jagooyinka iyo hungurigooda diinteennu waxay qabtaa asalna ka mid ah min usuul ahli sunna madaxda muslimiinta in dulmigooda loo sabro jawrkooda loo sabro khaladaadkooda loo dulqaato in aan nidaamka dhisan aan la burburinin laana inta dhisan haddii la burburiyo waxa ka imaan doona la garan maayo in nidaam jaa'ir ah oo xun oo liita inuu jiro laakiin wuxuun kala dambayna ummaddu haysato ayaa wuxuu dhaamaa in intaa la waayo saas daraaddeed baa culimmadu waxay yidhaahdaan leyla waaxida hal habeen oo dowlad la'aan iyo nidaam la'aan ah waxay ka shar badan tahay 60 sano oo imaam iyo nin madaxoo xun uu ku haysto dowlad xun oo 60 sano ku haysato 60 sano waxay halayn karto way ka yar tahay waxa halaabi kara hal habeen oo nidaamku isku dhaxdaato sidaas daraaddeed sharciadu waxay leedahay حتى إلى قال نما عد أون مرن كوتشين أون ضل لهين أو بنان كتالا لجو أركو الله صبر جور كون يان لجو كأن بل وحال ليه هلو دعيو إله ما ده حدا هجاج إله نو إصلاحي يا أنا نو إصلاحي إله نو هجاجي ورك هذا مية من هاي نابا إله كلا تور مننا ورد هلا كلا توره إله وحبي عن نوجو بدل حتى مرهم إله واحد عن نوجو بدل حتى مرهم إله كلا تور إله كان نجس وقبه مركزها وحوي وحن خلافنا هديجي صحدا هي مدي السنة واحد يجري سلفك هل دعاء لقى أقبل يهدي يجري له هل دعاء وبعاول اللي هذا هل دعاء لقى أقبل يبشره حاجين دقنا مع ديله إله حوله يصير ديله صوما هم إله عروسي والعروس هذه حولها وقضي خاص كوي لكن واحد يجري هل دعاء إله يقى أقبل يهدي يجري له ما ضحى نقول دعين له لأن أيجه مركي هجاجان ضلكي هجاج أو أمدي هجاج أو خير بالله أيجو أنت هالليسين هنا وحبوا هالليسين مركا أيجا إن لو دعيو لا إصلاحيو وحي خير لا تعاونه وحي خلد لجوانيو وحي نبى الله ضلقاته مصيرته أي صعته مثل بعضنا هنا نقول براغنا ولا جمبار مانو أيجو بالإيداي لكن مد ما أكسونه dhibku inuu inaga inaga socdo xagee iyagu ka yimaadeen ma samada ka soo degeen ma miriikh baa la inooga soo dejiyo dusha la inaga saaray xagee ka yimaadeen soo inaga inaga ma imaan waxaa laga yaabaa inay akhyaarteen yihiin way dhici kartaa oo in ka liidataaba inagu jirtaba sidaas daraadeed qaacidada saxdii wax weeye وعقوبة إلهي إنه عقوبة وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون مر هذا الظالم تها إلهي ظالم بوكساريا ما استاهشت إن مدح وناكسن يدولد وناكسن لقصيه ما دام الظالم تها مد ظالم وين لقو عقوبة ولقو قراع حلكو حاجة كتيرة مركا حلكو كتيرة ومدى لبكو كيميده تغيير كي الصحيد وإنه مدى كيمات ما إن دورك كرسي وكفر اليوم لدول تاجنا هذا مع أخطائهم وحي كتشنا هديون يجون حل كلمود كم بدل كوكلا كان ومحايس بدلي كم بدل كوكلا كان ومحايس بدلي بس ماشي بيتاج أنت لأن ليكو حلكو ما ينحلكو وحوي مجتمع إلا بدلوه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم هوسو حلقة سو بدلو ترتيب هلا صحو ومدى هلا بدلو هلا دقن عليو وحلا برو وعي كذا هلا كبعيو ومدني مركي اسبدشو دولتdeedii iyo madaxdeedii nidaamkeedana Ilaahay waa badalaya laakiin hadaan inaanu xoog aan kaga dhalino war ma gaalan xiriir dhali lahay ayagu un hal eedeeyo maaha dhibku halkaaba ma bahaba dhibku waa inaga dhexdeena saas daraadeed culimadu waxay tilmaamayaan waana sida saxda ah in ummadan tarbiyadeeda iyo toosinteeda iyo tasxiixinteeda iyo waxbarideeda inay waqti qaadato isbedel ku yimaado insha Allah ta'ala waa iimaanaya tartiib wuxuu u socdaan markii isbedelku hoos ka yimaado ayaa korkuna isbedelaya laakiin kor baan bedelayna anagoo hoos ka aafaysan wax soconaya ma tajribadaasi waa tajribo faashil ah waana in xaqiiqada ay u soo dagaan
dadka doonaya ama ka danqanaya ummadan iyo wax qabadkeeda waa in loo soo dogo xaqiiqadu inay tahay ummadda dhibku ka yimid waa in ummadda gudaheeda laga keeno saxidda laga keeno waa in ummadda la soo sox waa in ummadda la soo tarbiyeeyo waa in halka ka yimaado awdaacda isbedelkeedu biidin Ilaahi tabaaraka wa taala dariiqaas uu si sax ku yimaada laakiin wax lagu fardiya ama qasab ama xoog ah wax kuma yimaadaan sunnada Ilaahina way khilaafsan tahay laana dhibku kana adiga way hoosna adiga Umar baa waxa la yiraahdaa waqtigiisii nin baa u yimid wuxuu ku yiri Umarow Abu Bakar baan ka fiicnaa Abu Bakar baa ka fiicnaayo ka siyaasad fiicnaayo ummadda kaaga roonaa oo adigu martaba markaas wuxuu ku warunta bil horta Abu Bakar aniga ma gaari karo buu laakiin mid ma ku sheegaa buu Abu Bakar waxyaalo iiga fiicnaa waxa kamid ah Abu Bakar anigoo kala raciyad u ahaa buu adigana adigoo kala raciyad yaa buu adaa liigu ka ibtileeyay waa sax يعني عمر يا أخيارتاس أبو بكر دنعيها كتاجني لكن مركي نينك مضحى هبها الله يسناده وح الله يسنوا دنعيها كتاجنيهين أما الرعية دويهين والرعية دو أنا وها سنين هذا رد حلكم إيش على جمر راديو وحي بقى وضع إسلام وضع ولا قانو خربانه وحي هلا الصحو هنا الله صبره هنا الله صبره وعميدا صومالي وحنوم علينا الدرس جاسي والمضح هذا هبحهم هذين اللي مكعو لما بربريو نظام كوالله إلى عليا درس جاسي وحنوم علينا يا ummad maanta fahansan oo fiqigeeda leh oo inaga fiicanaysan jir laana dabkii waa ku gubanay Sooma dab maxay dhigeen dabas lagu gubtay baa ya dabkiisa laga gudaa waa gubanay waana rafaadnay ilaahay qaarkeen taagan yihiin ilaahu shaydaan ha noqotay wuxuun maanta noo keen wuxuun leesh laana waxaan dhadhaminay nidaam la'aanta iyo dhibaatada وبالتالي وحن لنا هاي وحي النظام ومضى سميلون وقدس إله متولة كدسناده إله مدقمة كلية كدسناده وحي النظام لسان هالعاوي هلا لقبته هلا الدايو هلا التاجيرو مصالح ده هلا لقبته وحي كدي من هلا قدره خلط كهلا قلنا صحيو كذبنا وحي لسان هلا يسلا راتسده هلا مدايو هلا يسلا دونته هوس هلا قصحه طريقة صحة oo ay ku soo noqon kartaa qarannimadii ummadnimadii dawladnimadii wada jirkii awoodii islaaxaas ku iman kara laakiin muxuu ahay turuqda dadka qaarkood ay moodayaan ma aha tii fitanka lagu bixin lahaa ama mad lagaga saari lahaa warka waa ku dheeraaday ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa bi asmaa'il husna wa sifaatihi al-ula inuu allah tabaaraka wa tacaala fitanka inaga saaro oo qaybsanaanta inaga saaro oo rabbi tabaaraka wa tacaala qabiyaalada inaga saaro oo gobolaysiga iyo degmaysiga ilaahay naga saaro oo qulubteena ilaahay isjeclaysiiyo oo walaalnimo iyo isjacayl ilaahay tabaaraka wa tacaala inoo soo celiyo innaga iyo ummadda kale muslimka ah ilaahay tabaaraka wa tacaala ina walaalayo qulubteennana ilaahay tabaaraka wa tacaala qulub isjecel walaalnimo islaamnimo muxuu ahaayay diin aakhira iyo adduunba ilaahay inuu inoo islaaxiyaan weydiisanayna hada billahi tawfiiq wa sallallahu